بسم الله والحمد لله. إن شاء الله تعالى waxaan ka hadlaynaa beriga aadaab subac ama hay-aad subac. Wax kasta waxay leeyihiin aadaab loo maro iyo hay-aad loo maro. Markii la joogo subaca iyo markii la joogo musaabaqada caadiga oo quraanka lagu akhrinayo isku si looma akhriyo, isku si uma ahan hay-aad amba isku aadaab ma ahan. Markii subaca la joogo tusaale ahaan quraanka markii la subcihayo waxaa la ogyahay inta badan in lasoo qabto aayadda ee laisla wada hoorsho sadarka ugu dambeeyo amba laba sadar ugu dambeeyo in lasoo qabto laisla wada hoorsho. laakiin markii qofka uu joogo musaabaqa caadi ah oo tartan uu ku jiro markaas uma baahno in lasoo qabto, asaa dhammaysahay aayaddiis lacallakum tacqiluun asaa dhahahayo. muga subaca la joogo waa in subaca dad soo qabto ay leeyihiin, dad hoorsho ay leeyihiin, dad daala ku ron yahay la iscaawiyo in taleefanada inta badan dadku ay ku mashquulaan beriyaha dambe soo baxay amba lifeka laga soo galo ama sawiraha lagu qaadee inta badan la iska dhaafo si tadaburka quraanka meesha uu looga helo. aadaabta waxaa kamid ah sidoo kale qaarigu inuusan ku neefsan meel sami ah, oo meesha hadday sami tahay ee aad ku neefsato waxaa macquul ah in qofka quraanka toosihayo in uu u fahmo inaad gefti oo markaasi kaa qabta aayaddii adigana aadan qancin, sababtoo ma gefin adiga neefsi caadiyaad ka waday. qofka marka wuxuu u fahmay in aayadda gefti, haddaad gefta marka aayadda uu kaa soo qabtay xoogaa waa qabashana ma ahayn, aayaddu aayad dhex bartamaha camal ay eeday. waxaa dareenta marka in laguu toosiyey tii ku xigtan haddana waa gefto waa laguu toosiyey. marka midda aad gefto haba laguu toosiyey, laakiin midda aadan gefin inaan laguu toosin ayaa fiican oo aad markaas aadan gefin aad aayaddaada ku saxnaato. marka waxaad u badbaadi kartaa kow meesha markay samid tahay inaadan samida aadan ku neefsan, oo meesha markay samid tahay neefsi aadan qaadan ee xarafka samida aad dhaafiso kabacdi aad neefsato, ama xarafka ka horeeyo aad ku neefsato ee kabacdi markaas aad aayaddaada sii wadato. tusaale ahaan hadda markaan akhriyayno kale hayaheeda markaan akhriyayno kale waid qiila lahum uskunuu hadihi alqaryata daa'ira, waxaa laga yaabaa inaan neefsado oo is yiraaho waa gefe oo mugaas waa kuluu ii yiraaho, ama asagoo isdhahay waa u saxan tahay ee waa neefsiyey sug oo isugo ee mugaas aan idhaaho waid qiila lahum uskunuu hadihi alqaryata fakuluu minhaa xaysu waa qalad ee mugaas uu kuu toosiyo. muga waqti aad meesha ku cuntay oo dhowr sakanaa lagu sugay, ama sidoo kale adigoo aayaddu kuu saxan tahay ayuu is yiri waa gafiyey u toosi. muga inaan isku dayno inta badan inaan neefsiga aan meel muhiima ku neefsano oo aayadda xarafka samida aan ku neefsan ee ka hormarino ama aan kadib marino. sidoo kale in qofka qaariga oo aayadda markaas ay kusoo aado inuusan aayadda subax hore muga la toosina oo waxaan ka wadaa la hoorinayo inuu la hoorsho. marka uu la hoorsho inuu ayaga xer ka hormaro oo neefsi yar uu sii qaato ilantiisi u dhiman. hadduu marka inta la hoorsho asagoo daalantiisi uu qaato waxaa laga yaabaa inuu laba xaraf ka bacdi uu neefsado, waana qalad. laba xaraf ka bacdi haddaad neefsato qofka waa kugu dhibtooha. matalan hadda waxaan akhriyayno kale idaa tadaaya haddii la yidhaah oo aad yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamaa haddaad tiraah waa qalad. waxaa rabaa inaad xoogaa sii wado إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما يعلمه الله فليكتب الذي عليه الحق. inaad gaartii kartaa la rabaa ugu yaraan, ama aad xoogaa xataa durji karto si aayaddii aad ugu neefsato ugu badnaan 3 amba 4 mug. hadday ugu badnaato 4 mug wixii ka badan waa lagugu dhibtooha. muga neefsiga badan inaad tirkaas ka ilaaliso way tahay. waxaadna ku ilaali kartaa qofkii hadda macduursan oo si u daalantaas waa gooni kama hadlayn. laakiin dadka caadiga ah hooriska hore qofka hore aayadda muga hoorsho oo la hoorihayo waa inaad xoogaa inta hooriso isboobsiiso ood si siraysi camal la hooriso ee aad xoogaa neefsi yar qaadato kabacdina aadaada bilaabato, ama aadanba hoorinba oo lacalla kumidoo soo marayso shib iska tiraaho kuwan kala hoorinayo adiga bacda aadaada sii qaado. haddaad inaad aayadda hoorisana ajiraa hele fadli badan ay leedahay yaan la hoorin ku tali maayo. laakiin inaad xoogaa uun taadina inaadan ku neefsan oo ugu yaraan aayadda inaad 4 sadaro ugu horeyso amba 5 sadaro ugu horeyso inaad gaarsiiso kabacdina aad neefsato laftirkeeda waa muhiim.
sidoo kale waxaan isku boorihaynaa subaxa markii la toosihayo amba la bilaabayo amba la qatimayo in dadka ajilada ah dadka ugu madaxweynsan in lagu darajeeyo oo inta badan ayaga ay qaataan haddii ayagu soo celshaan markaas ay dadka dhalinyarada ah ay yidhaahaan war adigu noo wada laa baasa markaas oo laiskugu ogol yahay culays ma jiro markaas laakiin inta badan waa inaysan dhicin xoogaa kala boob oo isku tanaasul iyo haddii alla ku horan yahay isku naxariisasho inay jirto sidoo kale waxaan isku boorihaynaa aayadda markii la qaadanayo kale qur-aanka maadaama uu yahay waxaa la yidhaha alcilmu bayna talaamiidi maadaama qur-aanku uu yahay in la kala barto oo la kala faa'iido ilaahay subxana watacaala ugu talagalay laguna dhaqmo waxaa la rabaa sida nabiga sal ly slam oo dhihi jira saxaabti kaalaya iiga baxa wixii aan idin baray waxaa la rabaa qofka markuu aayadda qaadanayo haddii aayadda ay tahay aayad sami ah oo amba laba amba saddex amba afar ah oo sami laisla yaqaana ay tahay waxaa la rabaa qofkan kaloo qaariga ah oo yaqaano inuu gacanta taago oo yidhaha saddex labo hal sidii dadkan kale ay u bartaan ay yidhaaheen saddex waaye alle la soo raadso goobo iyo markuu dhammaado subaxa ay aayaddoodii goobtaan way marka kale oo lagu yimaado sida ayaguna ay u dhahaan si laysku barto waxaa meesha ka dhacaysa marka balliq canii walow aaya sal ly slam uu yidhi war dadka iga dambeeya gaarsiiya oo isa sii gaarsiiya muga ma gaarsiin kartid haddii adiga aadan xaafid ahayn waxaad ku gaarsiin kartaa inaad xaafid tahay ama aad qofkan labada farood kuu taagay inaad labadii farood qabsato oo hal waa haysataa kan kuu dhiman mugay ay dhammaato subax u dhammaado inaad goobato ama aad qof ka tiraa hebelow doonta laba faroodaad taagtee khayr laa ku siiya xabadda labaad ii sheeg ama hadda waaba laga tago hadda googlaha haddaad ku qorato aayadda magaceeda googlaha wuu kuu sheegaaba googlaha ku qoree telefonka waa af carabiyehe googlaha ku qorey waxaa ku qorey aayadda magaceeda matalan ila aladiina aamanuu wacamilu salixaati ku qorey waxaa kuu soo baxayso inta ay ka koobantaa waa shantaa kuu soo baxe waxaa ku qorey ina aladiina aamanuu wacamilu salixaati waxaa kuu soo baxe 10 meelahaas inta inyihiin aan malaynaa haliyaa kuu soo baxe muga haddaaba laga tegaba googlaha ku qorey fadkhuluu abaaba jahannama qiila dkhuluu abaaba jahannama wix aad ku qorto inta ay ka kooban tahay inta bisanay ku kala jiraan ayaa kuu soo baxay ayagoo weliba shaqaal ahaan xafsa ku qoran oo shaqaal ahaantu inta badan ay ku qoran yihiin xafsaha googlaha laakiin adiga kabacdi shaqalka raadso ee dib maxaa la jiray u saxo ama haddaa xataa xafsada ku aqrisa xataa culays male laakiin aayadda markaas aaweyso dadku waxay dhihi jireen aqoontii kaa maqan googley ku jirtaa been maaha aqoontii kaa maqan googley ku jirtaa haddaad ku qorto aayadda qur-aanka fag ay kuu soo dhehe فقد يقول ترى أخرسه كبعدنا تذكر وسيقول إن شاء الله تعالى وحاجة رجينا مال ونكسن أهل القرآن الله نقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.